munaasabad lagu caleema saarayay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa lagu qabtay magaalada Jowhar. munaasabadaasna waxa ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle. warkaasna magaalada Muqdisho waxa inooga soo diray Cumar Maxamed Soomane. xafladan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay isla markaana ay ka qayb galayeen xubnaha ugu sareeya maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar. qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle, bahda saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo marti kale. waxaana ujeedka loo qabanayay xafladan ay ahayd mid lagu caleema saarayay gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, Ibraahim Cali Nuur. ugu horeen waxaa madasha ka hadlay isla markaana hambalyo guubaaba ah u diray gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Shabeellaha Dhexe, agaasimaha idaacadda Radio Hiiraaweyn Maxamed Cismaan Makaraan iyo qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee xafladan caleema saarka kaga qayb galay magaalada Jowhar. waa in aad loogu farxo in ururka saxafiyiinta Shabeellaha Dhexe ama wariyaasha ay samaystaan gudoomiye ay ku midaysan yihiin oo buuq la'aan ah ama aan muran iyo looma dhama iyo dacwo aysan ka jirin. ana waxaan hambalyeeynayaa wiilkayga Ibraahim Cali Nuur suxufiga dhalinyarada ah oo maasha Allah si aqlabiyad ah codka lagu siiyay maadaama ay ku tilaabsatay gobolka Shabeellaha Dhexe in ay isdooran karto dhalinyaradeeda ayadoo qalaaf aan ka dhicin. waxaan ku hambalyeeynayaa hambalyo aan leeyahay. waxaan isleeyahay gobolka Shabeellaha Dhexe wado cusub u furantay inuu dhalinyaradiisu isdoorato, saxaafadiisu isdoorato, ganacsigiisu isdoorto. waa wado cusub oo tilmaamayso inaan u jihaysanay dhanka horumarka. gaar ahaan ururada saxaafadu waa doorkii aqoon-yahanka, waa doorka luqa carabiyada lagu yiraahdo muthaqafka, waa doorka la rabo inuu ifiyo bulshadan meesha ay u socoto. dhinaca kale gudoomiyaha maanta la caleema saaray ee ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, Ibraahim Cali Nuur, ayaa soo dhaweynta hambalyada maanta loo jeediyay kadib sheegay in sababaha ururka loo aasaasay ay tahay sidii uu ugu qareemi lahaa bahda warbaahinta gobolka Shabeellaha Dhexe. bahaya ururka loo aasaasay waxaa ka mid ah waa fahmi kartaan mideynta inay tahay mid wax waliba lagu gaari karo. in marka hore la mideeyo dhammaan wariyaasha ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe, in la raadiyo xuquuqda wariyaasha gobolka ee kaga maqan dhammaan ururada ka jira dalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waxaa ka mid ah in wariyaasha inay helaan tababar joogto ah oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa ah si kor loogu qaado aqoontooda xirfadeed ay ku shaqeystaan wariyaasha. waxaa kaloo goobta hadallo dhiirigelin iyo guubaabaha ka jeediyey agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabeelle iyo wasiirada dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabeelle Sacdiya Maxamed Nuur Burus. waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan goobjoog u ahaano munaasabadda caleema saarka gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe oo runtii ah tallaabo aad u wanaagsan oo ay hore u qaadeen saxafiyiinta ku nool Shabeellaha Dhexe. codka qofka Shabeellaha Dhexe dhalinyarada saxafiyiinta oo dhan hadday inta meel fadhiisteen codkoodii ku siiyeen waxaa tahay miraayadii gobolka Shabeellaha Dhexe. waxa wanaaga ah meesha maaragtay dhaliilaha ay ka jiraan iyo meesha shacabka maaragtay dhibaatada ka haysato in aad maaragtay aad soo hormarisaan maamulkii kala shirtaan. ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa u hambaliyeeyay gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe Ibraahim Cali Nuur. waxaana gudoomiyaha gobolka uu sheegay in Ibraahim wax badan oo la taaban karo oo bahda saxaafadda gobolka uu ku soo kordhin karo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsan una soo dhaweeynaa inay saxafiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe ay maanta ayaga ay istood u doorteen gudoomiye ayaga ay maaragtay codkooda kula yimideen. waa wax aad iyo aad u wanaagsan looguna hambalyeeyo. saxafiyiinta waa bulshada qayb ka mid ah, waana dad badan oo dhalinyaro oo maanta maaragtay bulshadan qof waliba maaragtay xirfadeeda iyo nolosheeda intaba maaragtay ku beesgaraysan tahay. maadaama ay markay yihiin bulshada qayb ka mid ah, waxaan u maleeyaynaa in ay yeeshaan albaab. waxay u fududeeyaysaa ama ay u sahlaysaa wax badan oo bulshada kale inta uga dhex maqnay. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.